bishan Ramadaan dhexdeeda waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn. Dhacdooyinkaas waxaa ka mid ah Sariyatu Sayf al-Bahr. Marka hore waxaan rabaa inaan kala caddeeyo farqiga u dhexeeya sariya iyo ghazwa. Ghazwa waxaa la dhahaa ciidanka nebiga uu raacay uu hogaaminayay dagaal ha soo galaan ama ha soo laabtaan. Halka sariya lagu magacaabo koox saxaabad ka mid ah oo nebiga uu diray uusan asaga raacin. Sariyatu Sayf al-Bahr waxay ahayd kooxdii ugu horreysay uu nebigu u diray markuu Madiino u soo hijrooday kadib. Goobta waxay ahayd Sayf al-Bahr, meel u dhaxaysa Yumbu' iyo Al-Marwa. Al-Marwa oo ku taala Maka iyo Yumbu' oo ku ag taala Madiina waa agagaarka xeebta Badda Cas. Labada dhinac waxay kala ahaayeen Muslimiinta iyo safarleydii Quraysh. Tirada Muslimiinta waxay ahaayeen 30 saxaabi oo muhaajiriin ah, hal qof oo ansaar ah kuma jirin, halka tirada mushrikiinta ay ahayd 300. Waxaa kaloo la soo wariyay inay ahaayeen 130, laakiin waxaa xoog badan inay ahaayeen 300. Muslimiinta waxaa hogaaminayay nebiga adeerkiis Xamza bin Cabdilmuttalib. Calanka Muslimiinta waxay ahayd maalin ka horreysay oo la taagay. Wuxuu ahaa caddaan. Waxaa waday Abu Murtid Kanaaz bin Xuseyn al-Ghanawi. Haddaba maxay ahayd sababta uu u diray nebiga sariyada? Sababta waxay ahayd Quraysh. Nebiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka soo hijrooday gurigiisii maysan ka daba harin oo waxay rabeen inay ka daba imaadaan ay dhibaateeyaan. Cabdullaahi bin Ubay bin Salool wuxuu ka mid ahaa mas'uuliyiintii dadkii ugu muuqday Madiina, waxaana lagu waday inuu madax ka noqdo Madiina intuusan nebiga sallallahu alayhi wasallam u soo hijroonin ka hor. Markuu nebiga Madiina soo degay, Quraysh waxay u soo qortay Cabdullaahi bin Ubay bin Salool sidan: waxaa hoy siiseen saaxiibkeen, Ilaah ku dhaaranay inaad la dagaalantiin ama aad iska soo saartiin, ama waa idinku soo baxayna dhammaantiin oo waa idinla dagaalamayna, dumarkiinana waa xalaalaysanayna. Waa hanjabaad cad ay soo dirtay Quraysh intuu nebiga sallallahu alayhi wasallam Madiina u joogay. Waxay dhaheen ama la dagaalama ama iska soo saara ama waa idinla dagaalamayna. Halkaas markay xaaladdu marayso, waxaa lagama maarmaan noqday in xad loo yeelo kibirka iyo hanjabaadda Quraysh. Waxaa bilowday xilli cusub oo Ilaahay rasuulka iyo asxaabta ugu fasaxay inay dagaalamaan. Waxaa soo degtay aayadda ahayd udhina lilladhiina yuqaataluuna biannahum dhulimuu wa inna Allaha calaa nasrihim laqadiir. Markay aayaddaas soo degtay, nebigu wuxuu bilaabay inuu wada hadal la galo qabaa'ilada jasiiradda Carab degan, kuwooda dhow iyo kuwooda fogba. Iyadoo saas ay tahay, nebigu wuxuu maqlay in koox safarleydii Quraysh ka mid ah ay u soo socdaan wadadii soo mari jirtay Madiina, oo mar walba safarkooda la soo mari jireen. Nebigu wuxuu diray markaas 30 muhaajiriinta ka mid ah uu hogaaminayay Xamza. Markay gaareen Sayf al-Bahr, waxay iska hor imaadeen safarleydii uu ku jiray Abu Jahl. Qolo walba waxay u safatay dagaal, laakiin maysan dagaalamin oo waxaa dhex galay Majdi bin Camr al-Juhani oo labada dhinacba heshiis la ahaa. Wuu dhex galay, wuu kala diray, sidaas ayayna ku soo kala tageen.